xisbiga ugu muhiimsan ee ku guulaystay doorashadii ugu dambeysay waxay ahaayeen xisbiga SYL ama xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo loo yaqaano leegada. gudoomiyaha SYL Maxamed Abuukar oo la hadlaya ururka wuxuu yiri waa in la isku wada keenaa dhulalka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga annagoo diyaar u ah dhulalkeena inaan ku soo ceshano si nabadgelyo ah. hadday taas suuroobi weydana waxaan ku dhaqaaqi doonaa sida markaa nala gudboon. waxaan aaminsanahay dhaqankeena iyo diinteena qaaliga ah inaan dhulkeena Soomaaliyeed soo ceshano waa waxaan xaq u leenahay maaha waxaan baryaynaa ayuu yiri. walaalayaal waxaan nahay dad isku diin isku dhaqan isku af ah cidna kala geyn karaysaana ma jirto. waa inaan nafteena u hurnaa dhulkeena hooyo cadowga naga haysto ayuu ku soo gabagabeeyay. waxaan kaloon waraysanay ama aan la hadalnay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaali weyn. hamigooda wuxuu ahaa dhulalka Soomaaliyeed ay kala qaybsadeen Faransiiska, Ingiriiska iyo Talyaaniga inay dib u soo ceshtaan. dhulalka oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya la raaciyay iyo dhulka Soomaaliyeed ee Ogaadeniya oo Itoobiya la raaciyay. inaan dhulkeena Soomaaliyeed soo ceshano waa waxaan xaq u leenahay maaha waxaan baryaynaa ayuu yiri. tan kale wuxuu yiri luqadaha rasmiga ee Soomaalida ku hadlayaan waa inay noqdaan luqadda Carabiga ah ama wax lagu baranayo maadaama aynu nahay dad Islaam ah quraankan oo Carabi ku qoran yahay waa inaynu Carabiga baranaa. inta ku soo gabagabeeyay waxaa kaloo hadlay gudoomiyaha ururka shaqaalaha Cabdiqaadir Cali Boolay oo wuxuu yiri dhaqdhaqaaqa ururada Soomaalida wuxuu bilaabmay 1949 kaasoo ay bilaabeen dhalinyaro Soomaali ah si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka soo food saaraysa shaqaalaha Soomaaliyeed. 1952 waxaan qaadanay magaca ururka shaqaalaha midoobay ee Soomaaliya. sanada kadib ururka aad ayuu u fiday dad badan ayaa sanadaha ku soo biiray. kadibna waxaan mas'uul ka noqday shaqaale kala duwan sida shaqaalaha dekedaha, warshadaha, beeraha, kalluumaysiga iyo ganacsiga. waxaan kaloon ku biirnay ururka shaqaalaha adduunka kaasoo na siiyay aqoonsi aan aad ugu baahnayn. waxaan u diray 3 xubnood oo ururkan ka tirsan magaalada Kampala si ay aqoon kororsi ugu soo qaataan